سيارة أساسية وقفلت هاي قدومية كوهيك جمعية القادرية عبد الفتاح فيصل عبد الله هذا قليل هي كلمتي سلام رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد marka hore dhammaan goloweynaha culimada sharafta badan ee iskugu timi madashan qiimaha badan ciidamada marti sharafta kale qiimaha iyo qaayaha badan ee kasoo qayb gashay xafladan waxaan mar labaad ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. بعد السلام كل كلمة وحوية ومهنا وين ولوكسون هيو حفلة أمم مناسبة قارئة هي أيدي سكوني بي سيدا عادة هاي سنة والله جدي أنا وكلاي نقول بسنا هوديل كان كرار هوتيل معها حفلة بكي يقول لي سيادة الشيخ عبد القادر الجيلاني إنه هالكون أقوله كحسنه سيدات بقولوا حرمات وحول العالم أي كبلا أي طريقة هبيلها هبي كموسم كلاجة بساع وهبي هربوا بيناي تنوى سيال وعن هالكن الآن يا مهنا بلاره وجهي ليا شيخ عبد القادر شيخ محمد الحبيب الدين شيخين الفاضل إلهي عمري ساعات ما هي نقول عليه أو مروّل هيك الوجهة سيدا يروح ريبر لهاي ديتنا وبشقين لهاي أو جمعية أنا عارف يفكوا هذا ينافقوده يمدارس تفرح بدن كسر ميسن مقالة ده يسوي أساسي جهد وين نقليه ومضان إليه هل كان كشيء نقول ما هذا نقول دعينه فسواتا أنا وافق هذا هي جمعية القادرية مقعي لي لما أفق جمعية دوا وحان الكسور ويننا حفلة مناسبة سيارتنا يقول سينو شيخين وين شعب القادر الجيلاني قدس الله سره ونور أبواره أيام كسور ويننا وحامل ولا أيام كسور وهذا كعم فرن هي قلب فرن كسور وهذا وحوي وان يكون عندنا قينا كسور قبلكينا الكسور قبل كشين السوء أشيبتين وحويان ده محوها إذا في دنيا محوها عسومة أن يكون في دنيا تسوق البشر حفلته هذه الدولة يوم حسنتهين أنا كل وحويان كمدي هو مهنغون يعني يكون مهنا وسوق حفلة وسوق البشر هذه الدولة حسنته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. marka hore waxaan u mahadnaqayaa Allah raxmaanka qaadirka ee inagu kulmiyay xafladan sheekheeni Sheekh Abdul Qaadir Jilaani qowful acdam inaynu isugu nimaadno Allah weyn ee suura geliyay ayaan marka hore u mahadcelinayaa. marka labaad waxaan u mahadcelinayaa أبابله وينا إيش عبد القادر شيخ محمد ربيع وينوسو سببتها سبلها إن السجون ما تكون بحيي أو قبل قرش ما تكون بحيي وما هذا علمية أنت كذب هذا نسيرك هو أنا وصوك هو شيخا لنا شديسي يمشي كل شيء يصيد دينها مكاننا يسا وبربري ودقن كليي marka hore sheekha waa la wada yaqaanaa oo qaaradaha oo dhan
وعالم كله والله كي يقانا شيخ عبد القادر الجيلاني والله ينهضا ولقين بين اللقاني تدكين ووينا تدكين يريبنا إما كان للدورية إنا ينبرنه سيدا درتين شيخو مركو روحها نشريفة ونشي فاطمة الرسول يسيد علي عايز كذلين حاجة آبها حسن بوكاها شريفة حسن قال ينادو حاجة هو يدنا شريفة حسين اللي ينادو markaa wuxuu ahaa nin labada dhinacba ashraafka ah xagga aabbaha iyo xagga hooyadaba sheekhu wuxuu ku dhashay tuulo la yidhaahdo jiila oo 40 mayl u jirta magaalada baqdaad halkaa ayuu qur-aanka ku dhigtay oo ku dhameeyey xaafid ayuu noqday kadib sheekhu wuxuu u safray magaalada baqdaad isagoo culumta kala gedisan ka baranaya oo doonaya inuu magaranaysaa marka horeba ilaahay uu ku hanuuniyey inuu magaranaysaa caalimtiibad ilaahay marka horeba ugu talagalay magaalada baqdaad ayuu degay diintuu ka faafiyey dhalashadiisu waxay taariikhdu sheegaysaa oo uu sheekhu magaranaysaa dhalasho ahaan wuxuu dhashay markay taariikhda hijrigu ahayd 470 ayuu dhashay oo tuulaha aan idiin sheegay ee jiilo la yidhaahdo ee 40 kiiloomitir u jirta magaalada baqdaad ayuu ku dhashay baqdaad buu markay dambana waqtigiisa ku qaatay siduu diinta maxamediya uga faafinayay ilaa yoomina haadaa inuu inagu dhex nooliyey baa la moodaa sida loo garanayo iyo sida ma garanaysaa isamkiisu u taagan yahay ilaa yoomina haadaa dariiqooyinkiisii iyo dadkii diinta ka bartay ee ka aflaxay ayuu baana shaqadiisii sidii uu wadaa oy dariiqadeennani ka mid tahay qaadiriya aynu maanta xusaynaa sheekhu haddana wuxuu wafaaday markay taariikhdu ahayd 561 ayuu magaalada baqdaad oo uu ka sameeyey meelo waaweyn oo cilmiga lagu barto oo maraakisa ayuu halkaa sheekhu markaa ka sameeyey sidaa ayuu markii dambana halkaasuu ku wafaaday oo imika ku aasaya oo ma garanaysaa qabrigiisa iyo qubadiisuba ay yihiin magaalada baqdaad markaa wuxuu sheekhu cimri ahaan gaaray baa la yidhaahdaa ilaa 91 ayuu gaaray cimri ahaan waxaanu waqtigiisa ku dhameeyey inuu ahaa diinta fidinteeda inuu saahid ahaa inuu caalim ahaa inuu taqi ahaa inuu ku caanbaxay aayadda qur-aanka ee odhanaysa ina akramakum cinda allaahi atqaakum sheekh cabdulqaadir aljilaani qadas allahu sirahu inaynu isugu nimaadno halkan oo inteenana aynu waqtigeena usoo horreyn isugu wada nimaadno wuxuu ku mutaystay wuxuu isagu geliyey waqtigii ilaahay uu siiyey iyo jaaniskii ilaahay uu siiyey diinta qofkana marka uu jaaniska ilaahay uu siiyo diinta geliyo asagana ilaahay wuxuu siiyaa jaanis loogu duceeyo taariikhdiisa lagaga sheekeeyo magaciisu iyo hadalhayntiisuna asagoo intaas oo kuwa sannadood sii mootanaa ayuu dunida korkeeda joogaa oo la hadal haya maxaa qasbaya ama maxaa sababaya in la hadal hayo waxaa sababaya asaga ayaa waqtigiisii iyo noloshiisii iyo fikirkiisii iyo maskaxdiisii iyo jaaniskii adduunyada ilaahay ku siiyey wuxuu geliyey diinta muxamediyaad siday u fidi lahayd siduu calanka diinta u taagnaan lahaa siduu cid kasta oo mujtamaca makhluuqa ka mida ay u gaari lahayd diintu u fidi lahayd qof waliba uu ka dhargi lahaa diinta baahideeda iyo wuxuu ka dhargan yahay ayuu asagu waqtigiisa ku qaatay سيدنا الشيخ محمد ربيع الدين أدم الله عزه ونور الله ذريحه أيان لنا ونفعنا بعلومه شيخ خاصوس مديسو إيها الكوليكتيسو أي هي دينت محمديات مركو بلعبي أو دريقة الأساسي أما دردارا كومضة يحرتي سبو دردار متشري أي كوكا هيد طاعة الله تجمعنا والمعصية تفرقنا أي أمضة إسلام كا يحرتي بكل دردار متشري مركا ومهم إن ندعينا حق بنقول له تحسن بيد عليا مركا كواد المرلبات كا وحكو سودوان يوتيوب كانوا بحي شيخا نحصينا وحنو diinteenna ku haynaa oo nabigeena noo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka muuminka sidee nabigeena calayhi salaatu wasalaam abu hurayrata uu ka wariyey nabiga calayhi salaatu wasalaam
qofka muuminka idaa maata ibni aadama inqadaca camalahu ibni aadamka camalkiisu wuu go-aa markuu dhinto saddex mooyaane caalim dadka diinta baray oo cilmigiisii la intifaacsanayo saa sheekh cabdilqaadir aljiilaaniye maanta in cilmigiisii iyo kutubtiisii iyo dariiqadiisii aynu isticmaalayno aynu adeegsanayno oo dhammaan dee sheekh cabdilqaadir aljiilaaniye isu sheegi mayno sidaasoo kale ayay u soconaysaa oo nabigeena inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam sheekhu markaa wuxuu ahaa taariikhdiisii waa maqlayseen sidii sheekii igu horreeyeyba uu sheegay wuxuu ka soo jeedaa dadkii fadilnaa ee nebigeena inoo sheegay isagana calayhi salaatu wasalaam ee nebigu yidhi oo wuxuu ku tagaa nebiga calayhi salaatu wasalaam 11 aban odayga 11aad ayuu nebiga ugu tagaa sidii sheekii igu horreeyeyba sheegay marka arabeydkii iyo duriyadii ayuu ka mid yahay sheekh cabdilqaadir aljiilaani qadasallahu sirra wa nawara lahu dariixahu ilaahay qur-aanka inoogu tilmaamay qul laa asalukum ila almawaddata fi lqurba qur-aankan iyo hanuunkan iyo diintan aan idin soo gaadhsiiyey idinkaga dooni maayo abaal kale ilaa qaraabadayda aad jeclaataan mooyaane baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam markaa sheekh cabdilqaadir jilaani waxaan carab marinayaa si kooban culummadii ammaantay oo 4 madhaboodba isugu jirta ayaan wax yar ka taabanayaa magacyadooda aan sheegayaa anigu hadday inoo suurto galloto oo waqtigu inoo saamaxo insha allahu tacaala raacinayna kitaabadii ay ku ammaaneen iyo karaamaadkii ay ka qoreenba waxaa ugu horeeya alimaamu nawowi oo aynu wada garanayno oo sheikha leh riyaadu saalixiinka iyo minhaajka arbaciinka safiina kutubtaynu akhrisano oo dhan sheikha alifay sheekh cabdilqaadir aljiilaani uu ka hadlay waanu ammaanay marka intaanan waxay ka yidhaahdeen sheegin waxaan sheegayaa ciwaanada mashaayikhda ka hadashay sheekh cabdilqaadir aljiilaaniyi qadasallahu sirrahu wa nawara lahu dariixahu inoo caddaysay maadaaba ay jiraan dad khilaaf gelin kara alimaam nawowi baa ka hadlay waxaa kaloo ka hadlay alimaamu cizu bin cabdisalaam alimaamu dahabi alimaam ibn xajar alasqalaani oo isagu ka alifay imaam alxajar ibn asqalaani oo aynu garanayno xaafidkii weynaa ah oo caana oo sheekha bukhaariga inoo sharxay ah wuxuu ka alifay kitaab la yidhaahdo qibdat naadir fi turjamati sheekh cabdilqaadir aljiilaaniyi waxaa kaloo ka hadlay ibnu rajab alxambali waxaa kaloo ka hadlay alimaam axmed alrufaaci waxaa kaloo ka hadlay alxaafid ibnu lkathiir oo aynu wada garanayno oo maalwadaadadeenna yararoo dambe ay garanayaan oo aan u jeedinayno warba dib u eega maqaalaadka sheikhan uu ka qoray baaraka allahu fiikum inkastaan cidiba ku muransanayn sheekh cabdilqaadir aljiilaani diinta wuxuu usoo qabtay iyo taariikhdiisa waxaa kaloo isaguna ka hadlay alimaam ashacraani markaa inta aan ka koobo baaraka allahu fiikum wax yar imaamu nawowi ibn xajar alasqalaani mid walba wuxuu ka dhiman 2 kelimo oo kooban inooga soo qabanaya imaamu nawowi sheekh cabdilqaadir aljiilaani uu ka hadlay wuxuu yidhi ma ogin ma calimnaa fima balaqnaa min athiqaati annaaqiliina wa karaamaati alawliyaai akthara mima wasala ilana min karaamaati alqudbi sheikhu lbaqdaad muxyidiin cabdilqaadir aljiilaaniyi ma ogin kuwa wax naqliya ee kutubta sanifa ee naqligooda lagu kalsoon yahay muctamidka cid ka badan oo kaga badan waxay soo qaataan akthara mima wasala ilayna min karaamaati alqudbi sheikh lbaqdaad sheekha sheekhlbaqdaad sheekh cabdilqaadir aljiilaani karaamaadkiisa mashaayikhda kutubta sanifta ee wax naqlisa ee soo ururisa cid ay karaamaadkiisa kaga badan yihiin maanaan arag buu yidhi imaam nawowi baaraka allahu fiikum wuxuu ahaa buu yidhi shaykhu saadati shaaficiyati wa saadati alxanaabilati buu ahaa shaykhu lbaqdaad macnaa sheikh wuxuu aad aftahan ugu ahaa oo uu aad u fidiyoon jiray madhabta shaaficiyada iyo xanaabilida inkastoo aqwaashintoodajiran shaykhada kabir almadyakilan ya cabdulqaadir من أراد فلا يضعه
فليداوي بحضرة العبد القادر من أراد فلاح الدنيا وأخرى فليداوم بحضرة العبد القادر أنت شيخ شيوخ من الحسنين جدك المصطفى وظاهر مددا وغوثا والنصران منك يا شيخنا ويا عبد القادر أنت سلطان الأولياء جميعا نستجير بكم فقوم ثم بادر أنت قطب الله بقوم وتداري لا وداوي مريدك العبد قادر أنت قطب الله بقوم وتداري لا وداري مريدك العبد القادر قد كفانا فخرا وفوزا فلاحا كون شيخي وسيدي عبد القادر أفضل الخلق أجمعين محمد وآله يدي ما كلا دوان marka wuxuu yiri awliyadu waa anti shaqaawa waa kiniinka laga liqo xumaanta iyo qofku inuu shaqi noqdoba awliyada kuwa nool oo la siyaarto oo loo tago kuwa wafaaday oo dhintay oo la siyaarto oo lagu tawassulo labadaba waxa laga dheefiyaa lagu helayaa inaad shaqinimada kaga dawoodo inaadan shaqi noqon inaadan adduunkana guul dareysan aakhirana guul dareysan baa lagu helaa waa kiniinka laga dawoobo xumaanta noocaas oo waayahay shaqo waaba si fiican haday xanuunka noocaas daweynayaan mal ayil adilla maxaa tusaale ama adilla cad nataabsi nas sharciye nataabsi wuxuu yiri rasuulkeena kariimka ayaa waxa la weydiiyay awliyadu maxay tahay awliyada maxay tahay xabiibku wuxuu ku jawaabay qawm la yashqa jalisuhum awliyadu waxa la yiraahdaa qawm cid la fariisata aysan shaqi noqonba cid la fariisata oo saacada la qaadata noloshooda ama markay wafaadaan ku tawassusho oo xarigooda qabsata labadaas yaaboodba waa lagu la fariisan karaa waa qoom shaqinimada dawo ka alla fariisigooda markaas siyaarashadooda la fariisigooda ku tawassulkoodu intuu wuxuu dawo ka yahay xumaanta iyo shaqaawada sidaa daraadeed baynu Sheekh Abdul Qaadir al-Kiilaani ugu siyaaranaynaa u xusaynaa ugu tawassulaynaa ilaahay fadligu siiyay ugaga dalbayna inuu inagana wax inagu siiyo markaan taa ka imaado quraanka kariimkii wuxuu ka kooban yahay qaybayaal badan qaybta ugu badan waxa weeyaan waa qisaska ayaa laga waramayaa waa awliyo waa anbiyo waa dad wanaagsan waa sulxadii iyo qaar kale iyaguna xumaa oo xumaantoodii laga waramayo qaarkii samaa oo samaantoodii laga waramayo waxa aynu in badan quraanka ku aragnay isagoo ilaahay leeyahay wadkur fil kitaabi إبراهيم واذكر في الكتاب إسماعيل واذكر في الكتاب إدريس إيه قار كلو بدن ما حيتها مركا ما معنى الاذكر وحوية حس أو أمان أو شيء أو وركودي كورن قال يعني وركودي سيدا إما النبي إبراهيم مركا اللي هي كورن وحوي لهين اللي هي أما النبينا إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا waxaad ka warantaa nabi maxamedow
nebiga isaga ah ee nebi ismaaciil ka waran tilmaamihiisii ka waran tilmaamihiisu maxay ahaayeen wuxuu ahaa nebi ismaaciil mid ballankiisa rumeeyey oo ballankii uu qaaday aan ka bixin ya markii uu lahaa aabbow mar haddaad arrinkaa aragtay satujiduni insha allah min asaabiriin kuwa sabray inaan ka mid noqdaan laga yaabaaye oo isdhaqdhaqaajin maye amarka ilaahay ku amray fuli oo nebi ismaaciil aabihiisa qoorta u dhiganayey ilaahay waa ku ammaano wuxuu yidhi nin ballankii ka soo baxay weeye nebi ismaaciil waa yahay weliba iska daa ballanka soo bax keliya maaha waa rasuul nebiga haddana maxaa kaloo ilaahay uu xusay wadkur fi lkitaabi ibraahim nebi ibraahimna qur-aanka kaga waran oo dadka uga waran uga sheekee inahu kaana sidiiqan wuxuu ahaa mid run badana ah haa nebiyan loona waxyooday oo war la siiyey oo aan iska soconayn bilaa war marka kuwaas waa ambiyadii markuu ilaahay kaga warramayo qur-aanka awliyad markuu kaga warramayo meeday waxa uu ilaahay awliyada kaga warramay qur-aankiisa aayado badan waxaa la xusaa oo ay tafaasiirta xusaan 314 weli iyo qaar kaloo badan inta ugu kooban weeye inuu qur-aanku ka warramo nebi maaha rasuulna maaha weli haddaad maqashaan nebi maaha rasuulna maaha waa weli waa qayb kale oo saddexaad oo rasusha iyo ambiyada naa'ib ka ah oo kuwii dhaxlay ah allahuma salli calaa sayidina muxamedin waxa uu inoo sheegayaa oo ina leeyahay ilaahay markuu awliyada ka warramayo wakullu naqusu calayka naba'ahum wakullu naqusu calayka min anbaa'i rusuli intaynaan taa gaadhin waxaa ilahay leeyahay naxnu naqusu calayka naba'ahum bilxaq inahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum hudaa ilaahay wuxuu ka warramay suuratulkahfi oo dhan oo loogu magac daray inamo dhalinyaro ah oo aan rasulna ahayn ambiyana ahayn laakiin awliye ah awliyay ahaayeen dhalinyaray ahaayeen asxaabulkahfi baa magacooda la yidhaahdaa waxaa lagu tilmaamaa inay 7 inan ahaayeen inay 6 ahaayeen oo ay raacay uu 7 ku ahaa inay 7 ahaayeen oo aygu 8 ku ahaa 7daa inan baa ilaahay suuradda dhan suuratulkahfi la yidhaahdo looguna magac daray lagagana warramay oo yay ahaayeen inamo dhalinyaro ah oo awliye ah oo ilaahay doortay oo wanaagsan bay ahaayeen karaamooyin baa ka dhacay cidda ka warramaysa waa ilaahay qur-aankii buu kaga warramayaa nebi maxamed baa looga warramayaa sababta loogaga warramaya waa maxay waxa weeyaan in la ogaado fadliga awliyadu ay ku leedahay xagga ilaahay waxaa ilaahay leeyahay naxnu naqusu calayka naba'ahum bilxaq nebi maxamedow dhallinyaradaa warkooda annagaa ku siinayna annagaa kaaga warramayna niman dhallinyaro ah bay ahaayeen inahum fityatun aamanuu birabbihim dhallinyaro ilaahay rumaysay bay ahaayeen wazidnaahum hudan kadibna aanu hanuun u kordhinay waxaan uga socdaa waxa weeyaan waaxidun min alawliyaa hal qolo ama hal qayb oo awliyada ka mid ah oo ilaahay qur-aanka kaga warramay weeyaan waxaa ka mid ahaa dumar baa ka mid ahaa kuwa awliyada ilaahay qur-aanka kaga warramay oo yeehay wadkur fi lkitaabi maryama marka la leeyahay inaan wax ka ilaahdo siyaaradan awliyada sheekh cabdilqaadir jiilaani ilaahay dembigeenna ha dhaafo kii waalidkeen ha dhaafo ka walaalaheen ha dhaafo ka ummatal maxamedka allah ha dhaafo ma dooro naqaani allah inoo dooro cirka madar khayr qaba allah inaga siiyo dhulkana maslax iyo nabadgelyo allah inaga siiyo diin islaamka allah inagu jiro ha inagu nooleeyo ma dooro naqaani allah inoo dooro ilaahay ubadka inoo barakeeyo ooriya allah inoo barakeeyo saaqada allah inoo barakeeyo cimriga allah inoo barakeeyo caafimaadka allah inoo barakeeyo carabka allah inoo barakeeyo dowladda iyo dalkaba allah inoo barakeeyo diin islaamkana allah inoo barakeeyo insha allah bismillaahi kayba kuwa goosdambeedka dhigta innaga iyo inta inaga maqan iyo inta joogta inta dhaqan doonta diin islaamka ku dhintay ku noolaada allah inaga yeela insha allah siyaarada inaynu joognana khayrkeeda allah ina siiyo nebiga fadligiisa faataxa سبحان ربك دعاء دبديد الله inaga aqbale wax yar baan ku darayo waxaan ku daray siyaaradan ay joogno Sheekh Cabdilqaadir siyaarada waa ku dhalanay waa ku garaadaysanay waa ku weynaanay waa ku barbaaray
da-da aynu joogno inteenna joogtay ee inta maqaniba oo ku barbaartay siyaarada awliyada jannadii allaha ka waraabiyo inta dhimatay inta noola allah uga daba naxariisto innagana allah inooga daba naxariisto insha allah bismillahi kariim waxaan leeyahay siyaarada waa siyaada la yidhi siyaarada waxbaa ku barakooba waxba kuma nusqaamaan khayr oo dhan baa ku jira saliga nebigaa ku jira xadiska qur-aankaa ku jira awliyadii baa ku jirta awliyada ilaahay qur-aankiisu ku sheegay innaguna wixii ilaahay inoo sheegay dee inaynu wax ku qabsanaa waa wax meesha yaallo soomaalidu waxay tirahdeen xabaalo waalid baa xoolo lagala baxaa bay tiraa dadkana cilmiyan waxaa laynoo sheegay waxaa loo korsadaa ubadka loo dhalaa adduunyadana waxa ku taraan aakharana waxa ku taraan kolka la dhinto gacalku uu soo hadhaa xooluhuna way soo hadhaan laakiin camalkaa ku raaca waxaa kale oo labeeya weladka saalixa ah inuu kuu soo duceeyo ayuu ilaahay inoo sheegay ducadiisuna ay tahay istijaaba awliyadii inta dhimatay innagaa ka joognaa inta noolina waa joogtaa insha allah bismillaahi kariim waa taabacsannahay siyaarada sheekh cabdilqaadir waa taabacsannahay ducada waa taabacsannahay barakada sheekha waa taabacsannahay wixii wanaagsane aynu ku macaamilaynaba waa taabacsannahay insha allah bismillaahi kariim qaadiriya waan kusoo garaadaysnay ducada iyo sharafta iyo wanaagga iyo awliyada la xusayo ayaynu kusoo garaadaysanay maantana waxaan leeyahay hala sii wado waxbay nagaga xumaan maayaan dowladdaa ku barakoobi dalkaa ku barakoobi dadkaa ku barakoobi midnay ee lagu xusayo taariikhdii sheekhana sheekh cabdulqaadir aljilaani ilaahay ka abaaliyo halkii ay ka soo saareen hantidaasi ilaahay wax ka khayr badan ugu bedelo caafimaad iyo juhdi qofkii xoog kaga qayb galiyo qof kastaba ilaahay ka abaaliyo martida sharafta leh ee khayrka dhagaysatayna ilaahay ka abaaliyo waa taa taariikh laga warramay oo taariikhdan uu ka warrami maayo laakiin mahadnaqaasi iyo tirtirsiin dalkeennu wuxuu ahaa oo diinta ina soo gaadhsiiyey culimadeennii ahlu duruqa ahayd gaar ahaan culimadeennii ku abtirsinaysay silsilata alqaadiriyata dahabiya oo diinta islaamkeedna bartay taasaynu ku intifaacnay ilaahana inoogu anfacay dhulkeenna inoo ku barakeeyey waxa maanta inoo yaallaa waxa weeye inaynaan jidkii ka baydhin aynu ku soo caanamaalnay jadka jad ee aynu ku islaamka ahayn kuna iimaan qabnay waa inaynu difaacnaa dadka barnaa jeclaysiinaa ubadkeenna ooryaheenna iyo akhwaankeenna iyo inta kaleba aynu barnaa caqiidada suuban ee saliimka بركة الشيخ عبد القادر الجيلاني وحين نقول ورمينا كهضنا على طريقته نقتفى إنه أضر صعنا تدكي يدريقاس وإنه أينو أرجع مثل إنه ورمه أما أينو كهضنا بركات الشيخ وشيء أيو كوا كهذا إسكدايو إنه نشوفنا وهم كأرجع مسك بيننا أرجع بدو أينو كأرجع ورنا كل الله إنك نكتب فرق يد سجايا قال بركة الله سبحانه وتعالى waxaan jeclahay oo kaliya in laba xadiis oo qura oo culimada ay wax ka taabatay mid walba in yar ka soo qaado labada xadiis waxay ka waramayaan mid waxa uu ka waramayaa ida ahaba Allahu 'abda ilaahay hadduu qof u jeclaado oo xagga raxmaanka uu qofkaasi noqdo 'abd min cibaadihi saalihiin marka uu ka mid noqdo fa innahu qad dhakara ila jibriil buu sheegaa baa leeyahay دبنا جبريل مثل الله شيء فنادى جبريل
إلهي وحنا يا جبريل فإني أحب هذا فلان بن فلان بن فلان فأحبه فأحبه جبريل فذكر إلى الملائكة الآخرين في المرادق المنوع تضرر الصلاة بالبدء شرطية بأنها كلا إلهي وعيد الله على ملك وهذا هو رئيس الملائكة وروح المقدس مكة الله ضف نزلت القبيل إلى السماء وقد نزل علينا القبول لأنه حب فلان ولا يحبه هل كاسين نقول لكم شعرائنا مشايخنا إيا كلمات إيا كرامات أولياء إذا الذي أحبه محوكم شعرائي فإنه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما أمره وامتثل وحأوا الدري أما أوقات أوامرت إلهي بكدرمي وحأوا قدواري ما افترض الله عليه من الفروض وحأوا قدواري من النوافل ما تنافل من السنة وحأوا إلهي قدواري وزيادة أو سنة عبادة أبو قدواري وكل ما افترض عليه وامتثل بأوامره وأمام المصطفى فإذا كان عبدا من عباده الصالحين أو كان وليا من أولياء الله الكرام فلذلك كان يقول إياه إن أي إلى رسالة رأيته كان محفوظا إن وحبضا كبد باله إن الله إلهي سبحانه وتعالى مثله إن إلهي هذا الكيس أما عرب كيسه إن الله مدبات إجابته إن ما كان الله وحي إلى هذا قبول وكله carabkiisa waxa ka soo baxa qalinka lagu duugo waynu wada garanayna qofkaas wuxuu leeyahay tuf islaamaha yaqaanba rag iska daayeen cilmiga iska daa qofka tuf kale dumarkaaba yaqaan oo koona qofka wadaadka oo hebel noogi wala hebel wuxuu yaqaan tuf leeyahay koornaas laana faatixada maalintii uu akhriyay ilmahaasi habeenkii baa ugu dambeysay xumadii iyo xanuunkii ku dhacay dabadna waa laga aqbalo waa laga qaad hada waxaanu garanaynaa wax mustajaab dacwa karaamada la dhii sheegay waa tan ta culimada ka dhalataana waa tan وحويا أولا إلهي سبحانه وتعالى زيادة وشيخ في غير ما يوحى كهضي شيخ حسن شيخ علي إلهي سبحانه وتعالى هجرسي إلى حد العلماء الكرام المكبرين وحن شعل هاي هكا وحن قرنا إلهي مركو شعلابا الدونكا سيا وفر بدن با إلهي وحسيا كرامات كيس وبديهين أقونتي سيا عقلي سيا قرشدي سيا علمي سيا كحري الملكوتك إذا دبنا إلهي سبحانه وتعالى قلبي ساكو دقة دبنا وحنا نقضى قلب المؤمن وإلهي سبحانه وتعالى قال أي نقضية إنتاس وحوية كراماتك هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام كتاب الله الشيخ عبد القادر الجيلاني وأنا أخرج حديث كاس أوكلية كهذي وروح كلامك هذين هو حديث كاس أوكلية قفك إلهي ودواده يا إلهي سبحانه وتعالى صدق عطاك وأقبل قفك أدور الله إليه ونقضه كم حلي هاي إن أنه هذا الحينو عبد القادر الجيلي إن حتى يتلاميذي يا رجال الله يا علماء الحبة والمحبوبين أي مالوا بهذا الحيان وسوقه إن دفر بدن أي على جلسة أما أي كعرضان أو نور مالته أو إما كتشوجا وحويا كرامات الشيخ كمتها أبسط كرامات الشيخ أهل الحق مذهب وهو قضاء إلى سجنتها أولياء كرامة وأنها واقعة موجودة مستمرة في الأحساء وأي دعسه شرته دائما سبنا دحوه كرامة أولياء ويدل عليه وحاول دليل دلائل العقول وصرائح النقول أن عقلك الذي هي نقوش آيات أحاديث رسولك صلى الله عليه وسلم هو صريح عقل sidaas oo ogaan daawo hada karaamada saas way tahay waa shay ijmaac mu'taqadka ahlu sunna wal jamaa'ana kamid ah karaamaat sheekh Qadjiyaan radiyallahu ta'ala anhu haddaan laba iyo saddex ka taabto marka aad buu karaamooyin badan sheekhu sida culimada ay ka soo wada hadasheen culimo badan oo culimada islaam iyo xufaadii iyo aymadii yaa sheekha wax ka qoray oo kitaabo ka dajiyay oo fatwooyin ka bixiyay karaamooyinka sheekha saddex karaamo marka maadaama la xilligu waa gabaabsi ayaan ku soo koobaya ذكر شيخ عيسى الدين بن عبد السلام شيخ الشافعية شيخ لا يقاني عيسى الدين بن عبد السلام وها شيخ الشافعية وإمامك لا يقاني سلطان العلماء يقول إليه أنه لم تتواتر كرامات أحد من المشايخ إلا شيخ عبد القادر فإن كراماته نقلت بالتواتر وقال يا شيخ عيسى الدين بن عبد السلام
أحد مشايخ ذا كم ذا كراموين كيسو تواتر مجارين يعني حد التواتر والله يقعنا حديث الرسول كمرك لورينا أحد متواتر أي الله غيبي يعني حد التواتر بيقول أولياء ذا قفنا مجارين كرامة سو مجارين إلا إمام كشعب الغاجيلاني رضي الله تعالى عنه سيدات الشيخ هذا الشيخ وفي كتاب سير أعلام النبلاء كتاب كسير أعلام النبلاء وأوليه إمام كالليل هذا الحافظ ذهبي رضي الله تعالى عنه وكرامة سوى قورينية وكسوى قورينية إمام كله يقان الحافظ سيف الدين ابن المجدي سمعت محمد بن محمد المرائي سمعت شيخ أبو بكر الحماد رحمه الله يقول شيخ أصحاب الحلية هي أبو بكر الحماد أبو بكر العماد عن هذا عفوا كنت قرأت في أصول الدين وحنا أخرج شيء علم قال عن أصول الدين وعلم العقيدة كذا علم كلامك فأوقع عندي شكا مركز شكي بعد عيبه شيء خاص علم قاسان درسي شيء أصول الدين كذب شكي بعد ومعنا مسائل قار كود يعني مشكلة ذيك شيء فقلت وحنا يقول حتى أمضي إلى مجلس شعب القادر وحنا تجي يا شعب القادر يعني قولي يا مجلس كيسان تجي يعني سان مسألة راس وقصوا فائدة عن قرن واحد فقد ذكر وحى الشيء يقول إن كانوا أنا شعب القادر جيران يتكلم إنه كهذا على الخواطر وحيالها حتى كسر على الخواطر تاع قف وحى قد يسكتشره أي شيخ كهذا لا يقول فما بيت إليه وأنت مجلس كيسية مدرسة الشيخ وحكود درسي شيء أيام تقول وهو يتكلم شعب القادر وهذا يا مركب درسي بوذا فقال وحي ما كان سأصور قلبه وحي يري أصوات فريستي اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابة يعني اعتقاد كيجو وحنا نقول أمسنا هي معتقد كيجو ومعتقد كي سلف الصالح هي الصحابة سلف كي وناكسنا هي صحابة الرسول الله عقيدته هي معتقد كودي وهي أمسنا هي أمسنا هي بشيء إنك وكشة كينينا تراثكي هي تاريخ دي يمره وينوغتغي شيخ كميدا مشايخدي واوينيد عالم كإسلام كأنفعضي waxaa laga yaabaa in badan inay isweydiiso Sheekh Abdul Qadir al-Jilani maxaa xuskiisu ka dhigan yahay ama maxaa laga faa'iidayaa marka la xusayo waxa la wada og yahay culimo badan baa jirta shaayikh badan baa adduunka soo maray in Sheekh Abdul Qadir al-Jilani maanta la yiraahdo waa la xusayaa waxa laga helayo ama waxa laga gaarayaa waa maxay la isweydiiyaa ayaa laga yaabaa كل هالك سوما نسير دول تاجلها أو معناها كدوجن إن لحصة أما لقى كيو شخص كم ذا أشخاص دي إسلام كان فعلي وحين أوران كرنا نقص وضوء كرنا شيخ عبد القادر أما الشيخ كلا وح الله حصة معها إنه يسووا لها wax dheeraad ka ah wixii ay lahaayeen ummadii hore ee wanaagsanaa sida anbiyadii nabiyadii iyo wixaas ay lahaayeen lahaa maaha laakiin waxa weeyaan wuxuu lahaa xilligan la joogo dadka jooga aanay lahayn oo dheeraad kaga lahaa weeyaan waxaynu oran karnaa oo kale waxa la yiraahdaa nisbada ama abtirsiinta ama sheegashada la yiraahdo halkaas aan ku tiirsanahay waxay u baahan tahay meesha aad sheeganayso inaad aqoon u lahaato waxay culimadu markay noogu soo gudbinayaan Sheekh Abdul Qadir Jilani taariikhdiisii iyo qaabkuu noolaa iyo xaaladihii uu maray inaynu wax ka ogaano kuma aha Sheekh Abdul Qadir maxaa saynu ka qaadanaynaa inuu ka faa'iideynaa kulankan aynu isugu nimid كلام عربي وحوها علماء قرن حديث بيقول شيء عن به إن المحب لمن يحبه مطيع قفك وتشعلي هي أما عد يشعش هاي ويوجان سنتا يلا قوض طريق يدي بالرعدة وحلينا رشة كين يا مركزين ينفعنا أو شيء كوبادو أصدي وين أبو طيكرنا dadkii wanaagsanaa sheekhaas uu ka mid ka ahaa qaab dhaqankoodii cibaado iyo mid mucaamalo
sidaynu ugu dayan karnaa waxaad ku dayan kartaa markaad ogaato taariikhdiisa iyo qaabku u dhaqmi jiray markaad ogaato ee isku dayaysa inaad ku dayato waxaa kaloo aynu ka qaadanaynaa biidni illahi tacaala alibticaad can altashwiish aladi yashiicuhu bacdu nnaas inaynu iskaga fogaano oo aynu si xaqiiqa u ogaano waxyaabaha khiyaaliyaadkeen waxba ka jirin ee dadka qaarkood ay faafiyaan ee ay ka mid tahay awliya la caabudaa ama wax la weydiistaa ee ay ka mid tahay cid ilaahay subxaana wa tacaala ka sokaysa ayaa wax la mooday saasoo kale marka la isugu yimaada wixii laga sheekeeyo waad arkaysaa cid ilaahay aan ahayn oo la caabudanin inaanay jirin cid ilaahay aan ahayn oo wax la weydiisanin inaanay jirinna waad arkaysaa tashwiishka ama tashuushka lagugu furayo ayaad isagana ka bogsanaysaayo ilaahay subxaana wa tacaala uu kaaga dul qaadaya رحمة الله وبركاته ضمانتين وسلامتين سيارتي شيخ عبد القادر الجيلاني وعلى اللي أقبلي إن شاء الله تعالى صدى موقتا عد ضمانتك كسوق قلي يكون مقنبة إلى هيك جسائسي إذا كقيب قاتي حرتي الشيخة علماء كسي قادتي الدريقة الشيخة waddankeena soo gaadhsiiyey diintii dariiqada iyagana ilaahay nuurkooda nuur ha ugu siyaariyo dembigooda iyo dembigii waalidiintooda iyo dembigii mashaayiikhdooda oo iska yaraa ama aan jirin ba allaha dhaafo xildhibaankaa hadalkayga lahaa laakiin waan ka soo horkacay waxaan isku ogeyn isaguna inuu xaggaa u duceeyo ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda somaliland anna xaggan xerta aan u duceeyaan yaan hoos ugu wada hadlay waxaa kaloo halkan amniga iyo iimaanka ilaahay uu ina siiyey ay tahay inaanu ka mahadnaqno dowladdeennana aan u ducayno khaasatan madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland ilaahay galabkiisa ha galo xilka loo ogmado ee loo doortayna allaha ku asturo muddaxeledkiitaysa inta uga harsan wax badan oo soo qabtayna waxaa leenahay jasaaka allah khayr nagama maqin ee waad nala joogtaa kol haddii ciidankii nala joogo madaxdii qaranku nala joogto xildhibaanku uu ka mid yahay salaadiintii dhaqanku ay nala joogaan adiguna madaxweyne waad nala joogtaa baan leeyahay taasi waa mid aan madaxweynaha ku khaas yeelay dhalinyarta halkaa ka xadraysay imika cid kasta oo xaadira iyo cid kasta oo daawo doontaba qalbigooda iyo qiiro gelinaysa kuwii sii kordha ee sii bata ee sii jira ee sheekhoodii ka sharaaba ilaahay ha ka yeelo dhalinyarta kale ee bilaa camalka ah ee aan diinta baran ee meelaha fadhida ka soo qayb galo oo xer noqda oo ku soo biira ayaa lagu yeedhana iyagana wax laga qalinjabiye maaha halkan waxaa fadhiya sheekhiisii baa fadhiya 70 sano ayuu sheekh maxamed rabiic diinta wax ku barayey bilaash uu ku barayey sheekh daawud macalin axmed uu diinta uu ku barayey bilaash mashaayikhda kale ee waddanku ay bilaash ku barayeen dariiqada qaadiriyada lagu sheegaya waa maanta halkan kaaga muuqata weeyaan taasi waxay u baahan tahay inay maanta dadka qalanjabiyey ee bilaa camalka ah diin aanay ka qalanjabinayn oo weligeed ee lahayd soconaysa baa loo hayaa ka soo qayb galaan sheekh cabdiqaadir igu soo dhaweeyena aad baan u salaamayaa waxaan si gaara u salaamayaa ciidamada kala duwan ee qaranka maanta baarlamaankii keligay baa ka jooga iyagu ducada maanta waxba kuma leh waxaan u ducaynaynaa waxaa weeye waa ciidamada qaranka ee kala duwan ee inoo suuro geliyey inaynu amniga maanta aynu haysanno oo aynu ku dhiganno naga aqbalo allah muraadkeenna haynagu siiyo siyaaradeeda alla caafimaad haynagu soo gaadhsiiyo waxaan leenahay dariiqadii sheekh cabdiqaadir jilaani abka ab waataynu ku soo noolayn ummadduna sidaa u ogaato waxaa weeye sheekh cabdiqaadir baa hore uga hadlay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
الباب بكريكم في الباب فشل بلا حسابي سواك يا جلالي بكريكم في الباب الباب شل بلا حسابي سواك يا جلالي بكريكم في الباب شل بلا حسابي سواك يا جلالي بكريكم في الباب شل بلا حسابي سواك يا جلالي فشل بلا حسابي سواك يا جلالي فشل بلا حسابي سواك يا جلالي فشل بلا حسابي سواك يا جلالي